dowladda Ethiopia ayaa ka feejigan weerar qaraxyo ah oo mar kale laga furiyo gudaha dalkaasi. dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in dhici karaan qaraxyo hor leh oo ka dhaca gudaha dalkaasi kuwaas oo saameyn ku yeelan kara xaaladaha ammaanka ee dalkaasi. wasiirka isgaarsiinta dalka Ethiopia Ahmed Shide ayaa xusay in qarax la mid ah kii magaalada Addis Ababa ka dhacay toddobaadkii hore uu ka dhici karo gudaha dalkaasi, wuxuuna intaa ku daray in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay wadaan sidii ay uga hortagi lahaayeen weerar la mid ah kii hore. Ahmed Shide, wasiirka isgaarsiinta ee dalka Ethiopia, ayaa shacabka dalkaasi ugu baaqay inay ka feejignoodaan dhibaatooyin ka dhaca gudaha dalkaasi. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa fagaara ku yaala magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia oo isugu yimaadeen kumanaan ruux oo ah taageerayaasha ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. waxaa ka dhacay qarax geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. gabar ka tirsanayd warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa lagu dhaawacay magaalada Muqdisho sida warkaas uu ku faahfaahinayo wariyaheena Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki. kooxo hubeysan ayaa maanta isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho ku dhaawacay gabar lagu magacaabo Maryan Ruun Abuukar Sheekh Axmed oo la sheegay inay ka tirsan tahay shaqaalaha warbaahinta qaranka. ilaa iyo 2 ruux oo ku hubeysnaa bastoolada ayaa la sheegay in ay soo weerareen haweeneydaasi kadibna ay rasaas la dhaceen, waxaana loola cararay isbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho inkastoo aan la ogeyn dhaawaceeda heerka uu gaarsiisan yahay. dhanka kale agaasimo waaxeedyo kala duwan oo ka tirsan warbaahinta qaranka oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa ka gaabsaday in arrintan ay ka warbixiyaan, balse waxa ay si hoose noogu sheegeen in muddooyinkii lasoo dhaafay lagu muransanaa gabartaasi ka mid ahaanshaheeda shaqaalaha warbaahinta qaranka. lama oga cidda ka dambeysa dhaawaca loo geystay Maryan Ruun Abuukar Sheekh Axmed oo haatan la sheegayo inaysan ka mid ahayn shaqaalaha warfaafinta qaranka. waa mahadsantahay Ismaaciil. ciidamada ammaanka ee maamulka Galmudug ayaa baaritaano ku haya boqolaal Soomaali tahriibyada oo ku wajahan magaalada Boosaaso. warkaasi waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha Warqadle Cali Gaab. howlgalkan ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug ay ka bilaabeen magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa salka ku haya sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo doonaysa inay dalka ka taariibto isla markaasna ay marto deegaanada Galmudug ayagoo kadibna Puntland uga sii gudbaya kana sii taariibaya. waxaana laamaha amniga magaalada Cadaado ay sheegeen inay ka warhayaan ku dhawaad 40 dhalinyaro oo rag iyo dumar iskugu jira oo doonaya in deegaanada Galmudug maraan isla markaasna iminka ku sugan Cadaado iyo sidoo kale deegaano hoos taga. mas'uuliyiinta ammaanka magaalada Cadaado ayaa sheegay inay bilaabeen howlgallo dhalinyaradaasi lagu soo qaqabanayo ayna doonayaan dhalinyaradaasi ay ka badbaadiyaan dhibaatada ay wajahayaan taasoo ka dhalan karta inay badda ay ku dhintaan sida hadalka u dhigaan saraakiisha amnigu. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska degmada Cadaado Cumar Macalin oo warbaahinta Shabeelle la hadlay waxa uu sheegay in howlgallada ay bilaabeen uu faahfaahin ka bixin doono markii dhalinyaradaasi ay gacanta soo galaan ciidamada ammaanka, balse iminka ay baadigoobayaan oo ay ka warhayaan meelaha ay ku sugan yihiin ayna doonayaan saacadaha soo aadan ay gacanta ku soo dhigaan. muddooyinkii dambe ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa iyagu waxay wadeen dadaalo ay ka hortagayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaysa inay dalka ka taariibto kuwaas oo deegaanada Galmudug si mara si ay uga sii gudbaan deegaanada Puntland.